waxaa la yidhahaa Maryan Maxamed Cabdi waxaan deganahay xaafadda Buulxubey gaar ahaan Tiitiinley waxaan darisnahay gurigan dacwada la isku haysto oo reer Cumar Sheekh Cali ay leeyihiin aniga ayaga waxaan hay safka ka soo horjeedo waxaana noo dhaxeeya hal boos oo trade ah noo dhaxeeya kaasaan anna ka soo horjeedo ayaga dhinaca ka saaran waxaan marqaati galaa oo ilaahay wajigiisa bari maalinta qiyaamo la ii haysta heer Cumar Sheekh Cali in laga soo dumiyay isku raran oo booskoodii isku raranna kan loogu bedelay ay degeen ilaa intaan Buulxubey deganayna aanan cid kale u aqoonin oo sidaan idiin sheegayo iyagu aad qolka laba irdoodka ah qolkaas laba irdoodka ah wuxuu u ahaan jiray dukaan 77 ilaa qixi waxay gadi jireen barafka waxay gadi jireen jalaatada hawl badan ay qaban jireen waxaan kale oo marqaati furaa in guriga ku dhagano sidoo kale ay reer isku raran ahaayeen kan aniga iga soo horjeedo kan ku dhagan inay isku raranna daris ku ahaayeen oo say u wada deganaayeen loo soo wada fujiyay oo halkaas loo dajiyay waxa ama ka iyo yaabnugu noqotay ninkii la lahaa iyo sheeg Ciise golaha sare kacaanka ka mid ahaa Calimataan Xaashi oo golaha sare kacaanka ka mid ahaa yaa la yiri walaalkiis Maxamed Xaashi oo asna korneyl ahaa sidaan maqlay aniga ma aqaano laakiin Calimataan nin la yaqaano oo golihii sare kacaanka ka mid ahaa faamilkiisi 74 hadii loo jaray waxa marqaati laga yahay xilligii Maxamed Siyaad Barre dhul la dhaca inaysan jirin waxa marqaati laga yahay oo sharci ka yaala haddii qofka sanad ku dhisan waayo in laga celin jiray dhulka isla markaasna dad la siin jiray dhulkan asagoo iska banaan aan qofkaas la siin ma dhigi karo haddii ay jirto dhulkan asagoo iska banaan dhulka dhul dawladeed oo lahaa shakhsi ma lahayn dawladdiisa dib uga celisay sharciyaana ka yaalo xamar oo dhan aan ku dhisan dawladda ma noqsan jirin waa macruuf sabraloogi koowaad ay bixiyeen balse waxa shaqeynaya kii dambe shaqeynaya waxaan ilaahay hortiisa aan marqaato ogahay in bulukeetigoodii oo laga soo dumiyay isku raran ay ku dhisteen gurigan iyadoo la raraa ay keeneen ayaga ay dhisteen ay degeen yaan marqaati cad ka ahay waxa la yaab leh in xilliga burburka ah 7 sano ilaa 8 sano muddo ay hadda ku socoto la leeyahay dadkaas lahay Maxamed Siyaad Barre xilligiisa guri la dhacay ma jirin nin golaha sare kacaanka iyo nin ciidan ah ma jirin mana la aqoonin bashuftanimadan iyo ciidan xilligan burburka ay timid nimankan sheeganay hadaysan ayaga wax dhacayni maxaa ku soo aadiyay xilliga burburka xagay ku maqnaayeen 16 sano oo dawladii Soomaaliyeed jirto oo carrada nabad ahayd xagay ku maqnaayeen dhamaan madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha dhamaan mas'uuliyiinta waxaan u sheegaynaa in aanan shaatigooda maatada Soomaaliyeed lagu dhicin iyadoo nimankan ay ka soo baxayaan madaxtooyo ay ka soo baxayaan wiilka iraad la yiraahdo oo ka tirsan yahay madaxtooyo inaan shaarkooda lagu dhicin waa dariskaygi waa maato waa dad cad waxaad ogtihiin mala mas'uuliyiinta kor waxaad ku jirtiin xafiisyadiina iyo guriyiina balse shicibkiina waa dhibaataysan yahay yaan shaatigiina lagu dhicin gurigan nimankaasi ma laha aqliga ha shaqeeyo Maxamed Siyaad Barre xilligiisa la isma dhici jirin dhulka intuu ka noqso dad kala siin jiray caadiye ahayd marka dawladda Soomaaliyeed dhamaan shicibka waxaan magan ugu nahay hadii gurigan taasi ku dhacdo dhamaan ummadda Soomaaliyeed dhan waa ku dhacaysaa waa dhibaato qabnaa shicibka hadaan nahay nin durdurinay nin lacag bixinay oo shaati gashan yaa shicibkii Soomaaliyeed ee masaakiinta ahay ee dhulkooda joogay dhaxay waa dadkii cadcadaay waa 0.5 dadka iska leh gurigan waa 0.5 shalayna awood mooryaana la isu sheegay way ka badbaadeen ma maanta shaatiga dawladda lagu dhacaa dawladda Soomaaliyeed ha shicibkeeda mas'uuliyadaas iyada ay saaran tahay dhagiina ha taagnaado codkaasi maqla waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi waa idin dhaartay gurigan waxa iska la reer Cumar Sheekh Cali yaan marqaati ka nahay haddaan been sheego oo isinka ilaahay aan ku dhaarta annaga ku galayna cadaab ku galayno marka waxaan
waxaana soo kiciyay inaan xaq sheegno dariska ayna gardarada lagu sameeyna aan ka hadno ninka iraad la dhaho ee madaxtooye ka soo arooro ha naga qabto madaxweynaha jamhuuriyadda ha ka qabto masaakiinta maxkamadahan ee waxay ku shaqaynayaan aan la aqoonin xukun ma jiro dawladda Soomaaliyeed ha u digtoonaato maxkamadaha cadaaladda ha laga shaqeeyo alla cabsidiisna ha laga shaqeeyo intaas aan ku akaystay wassalaamu calaykum waraxmatullah ورجعت عمر الشيخ محمد فرت بلال ما هو ما غير عمر شيخو مركي عمر كي عمر شيخ يا هو يضنا وحالة إيه جرج أيو هذا كعب هذا هاي درس لما الله تنسج هذا يا مش لقى سود دمية هدرت وأوجينا بهدرت قرآن عداسة ونقانا وأنا لسوى الدمية رسكورنا أسلحة هل كان أنا لكينا يا أي كابورتنا دستين وأنا وكذا بين أنك أي كابورتنا دستين مركب قرآن عداسة ونقانا عدك الأمم مغلق إله لك بقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل كانوا حنك عدينا يا أنيو أحمد حاج صوفي labadan guri kan iyo kan ilaa isku raran aan iswadanay darasaan ahayn isku raran deganeen hal meel aan nagal soo dumiyay waxaan nala siiyay dhulkaaniti 75 kan nala siiyay tan waa super loogadi tan waa warqadii oo lagu canshuuray guriga oo 100 shilin ahaa 74 ka soo baxday munishibiya tan waa canshuuray guriga dadkan waxayna haystaan 8 sano maalin ka dambeys waxaa noo imaado nin cusub marnaayaa noo imaado mar niman kalaa noo imaadaan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaah naga qabto sharcigana kale waxa waaye ninkii dacad uu xisiinayaa dadka reer Cumarkay ilaa isku raran daras ku ahayn gurigeena guriga ku dhaganay deganaayeen ana cadeynaya kutaab gacanta u gashanay inay gurigan ay leeyihiin haday isleeyihiin dadkan gibilcad way dhaca waxna dhici kar ma jiraan dulan dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Khayre waxaan ogeysiinayaa dadkaasi iyo duq magaalada Cumar Finish in dadkan ay rawaa inay dhacaan أنا كان أنكو سعونه حق كل بإلهي وحنك بريا إنه ضدك التصو حقي أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رسولك عليه الصلاة والسلام أول وحيه يقول له حق ولو كان مرن حقك وهذا هذا قرارنا عندنا حقنا إلى المكان إن درسنا هاي فأذكر الآن أهين إلا واجي أنا هذا الدرس أنا هاي ما كم ده وحنا ما عيد واجباته أنا حتى عدد أنا لقوتي وعبد الله أنا الله كان وأنا لك حيستي سداد بلاد حنا كنت أجينا واجي ما وجه عصفان وإيمانا مرعينا سداد سنة مروحنا إيمانا هناك مركبه هو وكل خلنا إيمانس مركب حق إن لقى حد واي دولة الصومالية مدحونا فرماج حق حسنينا ضد كان هندايا ونبكي حاكم معنا إلهي كانوا أنا بحال دين إلهي أوكي محكمة هذا أنت إلا مالك سئين جايين دولة حق حسنينا عدالة حسنينا مدحونا فرماجو أنت وهل السبب إن حق مدة أصاد يعني ومدة نجربان معنا إلهي كان حافظ حتى واحد على عاسب يروح إن لقي محكمة السريع ورجله هواله دخله وأنت أمد ما إيه آخر ما أقدرنا وعمية إلهي سبحانه وتعالى على جبخه إفكا ولا جتجا آخر الله صعدا ما عندني كتاكو أمد لا هنيك خاطو أسجع وجوه ربنا ملها دورت بحق حسنينا إن مدة معنا إلهي كان وجعس من الصوم هذا أي جوري أي لاين حق ولاين معلم قف محق وكان سنايا عندنا دعوين سوحة أنا أكن لو أعتقد هو أنت سيته عندنا دعوين وحى نصعد والله والدولار وحنا دعوين
عدي ما أنت سديد السنة الدعوة إلا أحد وجه قول منخان ما دعيك تقول أذيك على هذا إن مرة ما تأخذ أو سوء أذيك ستة أذيك أدومته معقول ما أنا وجهي ما عندك إلا هذا تاجنا مدو صوماليات هنو سو دعيانو ومدها ولد عويا ما أنا كستو تكنيك كان أنت كان dhibaato adduun waan haystaa muddan dirsanahay dirskaaga waxa waaye ilaa aan lagu dirsin mar waxa la keenay dad oo iibsanaya la keenay anagoo guriyeen iska joogno waxay yeeleen guriga ay ku fiirsan war maxaa aragtiin guriyahan iib waa war aniga yaa degan guriyahan markaas ay dhahan anaga ku naas marabno sidii u baxeen dhowr jeer anagoo guriga cidi dirgin dhowr jeer inoo imaadaan dad dalaaliin ah marka muddaas iimaanka Allah geliyo xaq Allah geliyo xoolo islaameed burcad ma u socdaan الله نجحته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحوي إسعال الجعل إسعال الجومي حافظة واحد دقنا ناتي سوى الفور كان صدقني. مرك عدان درس عن هجرنا. مرك واسا سكرنا عدان نقانا واي ده كان وفرم سكرنا واي وأكيد بعد سكرنا. أنا واحد سكرنا حمر جب. حافظة واحد دقنا وارير سكرنا يرى حمر جب واي. مرك جوريا مات إلا شيكتو. يا تد يصبر كيمة ودبلا كيمة بورسوتان. جوريا بينكم قاعدنا يعني. باشان أنا حافظ أنت كنا جرني كان رن إلا إيوه عشان تقول سوون فور فرم هدا أنت كنا مركب منها إن هذا شرع الجرو والدولة سوامر يحكم وعين تذكر سبرلوجة هستان تذكر سبرلوجة هستان وهاي هستان شرع لما هستان تد يصبر كيمة هذا أبورسو وتان والدولة وتان قرية مقارنة كلام ما نقارن دونا هدا كوها منها قرية نقاتان ناس وحلقة يلا ما نجرين مركب تذكر سبرلوجة هستان عن صورتي بيجانا هستان فرمان اسمه فور فرمان نوى هستان علوم إسي هستان لا يترو قرية اسمان فرمان قرية توان وهجي توان كاس حبرت قلت أيوة اللي جري كل درسان سكولة كله أدني ودرسان سكولة أدني إلا حد أصل نقانا ده وحرينه واي ده كنت سنة درسنا هواي فرمان اسمه فور فرمان نوى مفاتين مركز ده مقالة دقنين أو إنجليز كيما هذه وبورصوتان إن قرية الله شاكتان ما أهم وحسب بروح تعمل هستان ورقة وحنا فارسة دوكمنتي وطن مركز الدولة وحنا كعصينا أما فرماجي يخيره إن أردنا سوفر قشان برجع والله كعضونا كعضونا وحنا دول ميشان كده قال لنا ما أنت يلا سوء عليني دول ميشان كده قال لنا ما أنت إن سوء علي معها ضد يصبر التكيم هذا جلوس كشكتان حافظ مو بدك جنبه كان جلو كويستو حافظ مو بدك جنبه ضد حبا ملاش بدك جنبه مو بنقانا بعناي لكن those people we know each other وعندنا مدرسة دقنين واحد مدرسة قرآن إسلام أدري وكان كلها جري عندنا قارنا رير عمر كي عندنا باللبق ودرس هذا معي مركو حام كعصينا دولة ده كان شرعيه استعمل قضايا استعمل هنا شرعوا فيريان كواس نحيان إلى فيريو ما عشان كشوا عدالة درجته كربشان أنت محاول قدرته عندنا أيوة اللي جري كان إلى هجرين ما عشان عيالك حين هجرين ده مكانه واحد معروف هواي وضد مقع الله واري عمر كي وفرمس كورن واي ما فهمتين بل ما شاء الله حد قدن والله لبا قيب واي دنا حمر جوك سو غورين دنا سو غورن سكورن سكورن wax kale ma degan ma shaan wax soo galooti ah wax meel kiiba balaha qof kasta qof kale way yaqaana marka waxaan rabnaa in sharci lagu kala baxaa dadka diasporada iska aadaano guri aan fara kala baxaano hadii mar dambe yimaadaana gacana saar doona wallahi kamana ka yeeli doona وبلا توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يوحى اللي يراها معلم مختار الشيخ أحمد اللي يراها أنا حافظ دان أي ذو حتى قولي أنكو علينا سودي لكن دتكي قاب سي سودي جيسي قاب سودي جيسي عدان وأصبرني بري أسئلة حدا يا عدنا أنا قرآن وقيل قفك قرن حتى ما أبغى لكن عدنا غير حاجة قرآن أنقار كان كور سنة يدقنا أيام دعوة عن وقت اللي يسوق الشهر هذا وأنا أكرت إنه ما عرفت لول سوق بسكر عدتكم سوق بسكر لكن أنا وحنوجه عدة سنين لا عدة سنين يدقنا أيام قرآن عداس إني جورجاس دجنايين أنت صوصنا إيه دجنايين أنا خلاص أنا أقول هذه أنا ثلاثة أفرتين سود دجلا لكن ثلاثة شنت ملاسني إذا جعل هذا صعب صح وايبا لا صعب أنا ثلاثة أفرتين سود دجلا ماشي مسؤول حتى ما قدروا دور كاس هذه جرا
دور مسقول حتى ما قبل ما إذا متواجد كوسو دقوا marka anigu waxaan ogahay cidaan inay gurigan ku dhaqmi jirtay ay joogi jireen oo cabdi yarka wiilka uu ku dhintay oo haddana aabiis ku dhintay intaas ay deganayeen ogahay dacwadaan mugdan baan maqlay bismillaahi rahmaani rahiim maanta waxaan joognaa guriga reer Sheekh reer Cumar Sheekh Cali reer Cumar Key guriga aniga waxaan ka ahay sideedaba wakiil ee uu ka sheen reer Cumar Key warqadda igu wakiisheen waa kana warqadaas kale isoo qabo warqadan waa super logoodii aan u sameynay okay dukumiintigoodii oo dhan aniga u haayo ma fahamtay maanta waxaan marqaati keenay markii maxkamad oo xiran oo rafaan qaado weynay wax rafaan ma jiraan maxkamadii ma shaqeyso ma fahamtay marka xaqaas dadkaas masaakiinta dhulka waa leeyihiin dadka dariska hay kulli maanta way wada hadleen guriga nagu dhagan waxa iska leh ciday iskala soo guureen meesha la yiraahdo isku raran cidan kale waa ogeed culimadii way joogtaa marka aniga waxa waaye dad nimanka hadda dooda waxay ku doodeen cidaas ayaa guriga dhacday laakiin anigu ma dhicin mana dhacayno waa kana warqadii waa tana warqadaas waa warqadii wakaalada oo li soo wakaashay ay soo wakiishay reer Cumar Key ma fahanteen super logoodii aniga u haayo reer Cumar Key Khadiijo Cumar Key walaalkay Cabdirasaaq Abdullaah Cumar ayay ilmo u dhashay anigu ma degin guriga xataa xaafad kale aan ka deganahay marka waxaan u sheegaynaa dawladda sharafta leh inay xaqa noo soo dhiciso waxa intaasoo darisa islaamaha kulligood marqaati ay dhaar ugu mareen ayagoo shaqo ay isku lahayn jiray darisnimo iyo alla dartiisa ay ahayd labada cidood way hadleen guryihii waa kaasaa waxaan ka baryaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa duqa magaalada inuu guddi noogu soo diro xaafadan oo xaqa la soo saaro mar kasta ha loo hirsho masaakiinta xaqana garab ha la siiyo wabilaahi tawfiiq